السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ميل والبعض قد عونيسان يسي والبعض مركادي مغلسان وقال كان مانتو حين كفران قين دونا استقابسي قاود حي دولة فدرالك الصومالية هي كونفور قلبي إذا ماذا إثيوبيان كدالك هكبحان ومحي فسيرات دلقا بحين كرو يا عرقتيها كلا الدول أمريكا كل حيران وحان قد كسو قلين دونا وزيرك أرمها قدها ماملك كونفور قلبي عبد الله حاجي حسن oo aan bal dhowr su'aalood oo arrimaha la xiriira aan weydiin doono waxaan se ka hormarin doonaa bal falanqayn kaleeto iyo xogo kaleeto oo kala duwan oo aan markaas soo aruuriyay waa maxay waxa meesha ku jira ayaynu marka hore falanqayn doonaa kadibna wasiirka ayaynu bal dhowr su'aalood hor dhigi doonaa oo arrimaha aynu falanqaynay marka la xiriira marka ugu horeysa dhowr meelood baynu ka fiirin doonaa hadalkii ka soo yeeray la taliyaha amniga qaranka Mr. Hussein Macalin oo ku yiri ciidamada Itoobiyaanka dalka way ka baxayaan sanadkan dhamaadkiisa ayadoo marka aan la sheegin ciidamada Kenyaanka baxayaan ciidamada Burundi kuwa Uganda kuwa Djibouti Itoobiya in marka la fiiriyo hadal hayl xoog leh ba ka dhalatay hadalkaasi uu sheegay la taliyuhu waxa ka falceliyay xildhibaano kala duwan oo uu ka mid yahay xildhibaan Xasan Cabdi Nuur oo horay markaasi ugu tartamay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya doorashada hadda ugu dambeysay waana xildhibaan dhanka koonfur galbeed marka ka soo gala waxyaalaha marka ugu horeeyo oo su'aaluhu ay ka imaanayaan ayaa waxay tahay waxa waqtigan ku soo beegay in la yiraahdo Itoobiya hal saaro ama Itoobiya way baxaysaa waqti dhowr maalmood ka hor uu wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Mr. Ali Balcad uu sheegay inay wada hadallo socdaan ay marka Turkidu ka yihiin maxaa la yiraahdaa garwadeeno waxa isbedelay way su'aalaha ugu horeeyo imaanaya xogo madax banaan oo aan helay ayaa xaqiijinaya in markaasi arrintaani ay ka timaaday khilaaf markaasi ka dhaxdashay Xasan Sheekh Maxamuud iyo lafta gareen waqtigii markaa lagu jiray shirkii madasha wada tashiga qaran dowladda Soomaaliya waxa ka muuqata inay isku dayeyso inay koonfur galbeed markaa ay cadaadiso ayadoo aad moodid inay ku cabsiinayso Itoobiyaankan saarayna lafta gareen si marka loo arko in lafta gareen uu ka soo dabci karayo positionkii uu marka u taagnaa sidaan hore uu sheegay muqaaladii hore aan ku falanqeeyay maamul goboleedyadu waxay taagnaayeen 2 sano extension hadal siiyo xasan wuxuu taagnaa nilima siinayo doorashada aniga maamulaya halkaas la iska fahmay qodobkaayo dhan waa kii hore loo tuuray marka halkaas ay ka timaaday arintaasu dawladdu marka haday tiraahdo ha baxaan ma baxayaan way su'aasha kale ayaduna imaanaysa uma malaynayo hadal dawladda Soomaaliya ka soo baxay inay inta Itoobiyaanku qaataan markaasi ay dalka ka baxayaan waayo waxa tusaale inuu ugu filan qunsuladii Garowe iyo Hargeysa ku yaalay oo ay tiri dawladdu hal xiro oo wali furan Ali Balcad uu sheegay inay wali furan yihiin oo ay diideen sida marka ay ciidanka Itoobiyaanku ku baxayaan ayagoo raba inay joogaan runtii ma ahan arrin waaqici ah mana muuqato markaysan marka waxay u muuqataa marka cadaadis siyaasi oo ninkan la saarayo laakiin arrin waaqici ah uma ay muuqato dhanka kale marka aad ka fiiriso waxaad arkaysaa oo ayadana aan la iska indhatiri karinin annaguna aynu u baahannahay inuu xisaabta siyaasadeed ku darno Itoobiya waa dal cadow ah oo marka ku soo duulay dalkeena doonayana inay badeena qaataan arrin marka wanaagsan bay inoo ahaan lahayd haddii hadalka dawladdu markay yiraahdaan baxa ay baxayaan laakiin waaqicu sida uu ka duwan yahay marka haday bixi lahaayeen baan wax weyn oo arki lahayn waxaanu fiirinaynaa marka bal wasiirka aynu weydiinaynaa wasiir marka horta soo dhawow sharaf bay tahay inaad igala soo qayb gasho falanqaynteeda maanta waxaan rabaa inaan su'aasha ugu horeeyo aan ku weydiiyo haddii Itoobiyaanka la saari karayo inay baxaan sideed u aragtaan ka maamul ahaan koonfur galbeed bal marka ugu horeysa su'aasha soo dhawow wasiir waa ma asantahay fursada aad siisay inaan igu soo dhaweyso anigu ma qabo wanta khilaaf kale sheegay media ay bomboonayaan inuu jiraba arrinta ku saabsan Ethiopian kaliya ma aha waxaan ognahay ciidamada Amazon iyo kuwa hadda soo bixiyo inay wadanka inay ka baxaan sanadkan gudihiisa markay dhamaado waa wax la ogaayo qorshe aad مرة واحد كبحان هذا إن لو كهاي هذا مارين بالو وكيل لو كردي هذا كنت في بعض معطي
taas waa mid caam oo la ogyahay khilaafkan muxuu ahaa Etoobiyaanka kaliya ka baxaan macnaha hadda ay ku fadhido ma garan karo ثانيا officialina wali ma qalma wali iyo madaxweynaha koonfurta beed inay iska arkaan ama ay wax go'aan ay gaareen ma ogin wali laakiin kulli waa ognahay koonfur galbeed ciidanka jooga waxa u badan Ethiopians okay au joogaan si adlas ama si gaar ah u joogaan waana ciidanka hadda nabadda meesha ka sugo oo aad u caawina ummadaas tuulooyinkii degmooyinkii ayaga jooga badid okay haddii xataa maandiiskooda ugu dhamaaday ay ka baxayaanna hadda wax bedela in la helo waa qasab ama ha bedelaan ciidanka loo shisheeya ama ciidan Soomaaliya wuxuun inay bedelaan ilaa cadowgaana haya cadowga koowaadana oo laga dhaxeeyo waa shabaab laga ognahay marka ay wixii ka soo cararay hataa gobolada dhexe waxay kusoo qoqoraan gobolada koonfureed awood baa loo baahan yahay muxuu ahaa ka dhicisa ama se ka saarta dhulkaas haddii taasna haddii dadka hadiiba go'aan oo yahay guud ahaan dowladda federaalka inay ka baxdo Ethiopia haddii wixii buuxin lahaa oo la helo wasiir waxaan ognahay in Ethiopia ay tahay dal cadow ah oo dalkeena duulaan ku ah haddii la saari karo بدل لو هلي كرايو ميسان أرين وناكسن أهين اللي تبي ذلك اللي قصاره أركتاب الكور. وأرين كان بقصة أبصر خلاف إثيوبيا صوماليا ما أنت واقع صوم مع ولا وضعي هاي قبل صوماليا والضمير وقرانا أنا إن إثيوبيا رأي بدأ صوماليا إذا معه ما يرتو إذا قرانا سلامة تاس والجمع ذي سيا صوماليا وإذن وحلصوا يا كريه moment كان هذا الجوجو هو أنا كان إثيوبيا كوفر جوا قلب جوجا أوكي حقيقة وهاي تاي وهاي يعني نبض هذا الوجوجو يوم هو أنا بدنا بكايان هدي أي كبحان أو سرعة أو بود لفاعه هدي كريه وحلو بهندونا عدي بدل هاي وبوحلنا هيك بوس كلهم بالله بعلى مويه بس ما خلاص صراحة إن كوفر بعد كنا سووا رجيتو أما إثيوبيا ما تاجريسو أو أرندو كاف يبدأ سكوا تاجريسو موقف الصومالي أو إذا كان حيوان كان كانوا دنك واقع كده مركز إنه كفير إنه وزير وحين أجن هاي إن أي جرتو محل هذا رئيس على شعب إمام مولاد ساريان يعني هاد جدا بيجي هدي مركز عن لكينين عيدا كلا مقولتها إن عيدا ككونفور قلبات يكون الدولة ده واحد كتشوجا أي كفلين أمنيجا كونفور قلبات هي اللي هذا الشو. exactly ما سؤال اللي سويديني أوبا اللي سويدي ما تأكلي موي كدهتان كودو وحكم ما فضيله والأمريكا لكن اللقي محله يسوق عليا هدي منا هذا الجوال كوضع بحان هذا حقيقة إذا ما أنت أسئلة مهمة شباب نقصوا قوليسو أوكي أود إن الله هلا مقولسا وكل قلبت إذا وين هيسا أو بدن أو أنت توبر على الوضع لكن ولي وحاول إن أنا أبغى عليه كذي شباب ولي بس وضعتي أو ولي كسر على والله أنا هو عبد وعدم با وسيج منه صدقني كذا هي marka awood ay u baahanayso weyn waxaan aaminsanahay in aan ku filnaan konsul galbeed dowladda federaalka ciidamada oo kala daafsan oo hadda dowladaas dadka ku maqan iyo inta oo laga baxayo sida uu soo keeni karo way adag tahay marka waa in xal oo la helaa wasiir wad mahadsan tahay intaasan waan fasaxayna aad baad u mahadsan tahay time-ka aad nala qaadatay haddii aan dib ugu laabano conclusion-ka falanqaynteena maanta ito markii runtii aan soo xooriyo macluumaadyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan marka aan ka helayo dhowr arrimood ayaa runtii waaqic ah oo markaasi muuqanaya midda ugu horeysa waxa weeye qorshahani ka soo yeeray la taliyaha amniga xasan sheekh maxamuud waa qorshe siyaasi ah أنا قرشان واقع هاي وحلقان هذا عينو كتيرنو وها كلامتو أيضا كسر أحبها يا information كان عروري إن إثيوبيا أيسن حلقان دقيسنين هذا الكسر يراد دولة الصومالية هدي دقيسن السنة هرب حيقول دقيسن لهيد هذا الكي أها حل حرق السورية ده مركز إثيوبيا كودل كصوماليا أنا حب بكتشوغان شغالة كمان قبتان بافزون بين واركان دم تهودي أنا كده حركيان لكن هذي الدنيا اللي بحاول بحيان هذي الدنيا نشوفها وتشوفها لكن سيدا أي مانتا الصومالية تهاي
دولة الصومالية أي ودا قميصو صوماليدنا أي تهاي إثيوبيان كو نما احترامي دغانا ويكفر يسانيان ugu dambeyntii marka aragtida kale aan ku soo koobiyo iga soo baxaya hadalka ka soo yeeray Xuseen Macalin waa kala dhaqaaqi dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa inoo bilowday marar badan baynu arintan horay aynu u saadaalinay oo horay aynu analyze gareynay wixii hadda ka dambeeyay marka waxa imaanaya marka isqabsi caanka ahaa sanadii barkii ugu dambeeyay baa la soo gaaray mandatekii Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii baa la kala riixanaya nimbagod bugalaya arrimihii caanka ay ku ahaayeen Soomaalida ayaa hadda inoo bilowday iyo wixii loo yaqaanay Star Warka bal wixii ka soo baxay dib baynu ka falanqeyn doonaa intaas aan ku soo koobay inta dib soo laabanayno waxaan ka tagay nabadino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.